بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo la yeelanayo Cabdiraxmaan Buubaal Maxamuud oo ay dadka u yaqaanaan Atoosh Yare. Atoosh waxa marti ku tahay Kuwara Channel. ku soo dhawow Kuwara Channel. Kuwara aad u maasantahay adiga iyo dhamaan asxaabta naga daawanaysa page-kan Kuwara Channel hadii ay noqon leed page-ka Facebook ama page-ka YouTube-ka aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta aan la joogo Kuwara Channel aan soo fadhiisto oo asxaabta ay i daawadaan. aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga oo aad nasiisay. Atoosh run ahaantii waxaa tahay wariye da'yar codka oo ku hadlo iyo face ahaan run ahaantii dadka aaday ula dhaceen. Safiyan sidee kugu suurta gashay inaad koobi garayso codkii Cabdirasaaq Xaaji Atoosh ee wariyaha BBC-da? maalintii ugu horeysay oo aan barnaamijkaasi aan bilaabo waxay ahayd bishii December sanadii 2017 xilligaasi oo Radio Jawhar aan joogay iyo sidoo kaleente garoonka Salax Yar oo ku yaala Sheekh Xanafi aan barnaamij ka tabinayay oo Maxamed Cabdi Seedo oo asaga qadka si toos ah ii soo galiyay sidoo kaleente Mukhtaar Xaaji Xuseen Faransa Maxamed Cado iyo sidoo kale Cabdiqani Sheekh Maxamed iyo Cabdirasaaq Xasan Cali Ciiltire ayaa barnaamijyadaasi markii arkeen waxay ugu dhiirigeliyeen in aan magacaasi aan baxsado iyadoo dhalinyar aad u fara badan oo dalka iyo caalamka ku sugan ay iyagana codkaas ay ugu taageereen oo inta badan ay ugu dhiirigelinayeen in aan baxsado magacaas. marka isku day dheer kadib waxaan ku guuleystay inaan keeno codkaasi oo aan codkaasi la qabsado xitaa markaan bilaaway dhibaatooyin fara badan fiir xanuun iyo qunfac iyo daal badan ayaan ka soo maray laakiin ugu dambeyntii waan ku guuleystay. Atoosh inkastoo aad ku guuleysatay ma jirtaa caqabado ka soo wajahay dhanka shacabka inkastoo dadku ay isugu jiraan dad wanaagsan iyo dad xun dadka qaarkii waxay kugu dhaliilayaan codka qaarna way kugu amaanaan ma jirtaa dhibaato si qaas adiga aad kala kulantay dad? mahad Kuwara way jirtaa dad oo qaar i dhaliilaya dadka qaar way i taageerayaan markaan arkay ayaanta marka ugu horeysay oo aan barnaamijkaas bilaabay dadka qaar way i dhaliileen dadka kalena way i taageereen oo tafatira iyo agaasimaha Radio Jawhar iyo sidoo kale Cabdiqani way arkeen barnaamijkii waan u sheegay markaas waxay ugu sii dhiirigeliyeen inaan dhageysanin dadkaas warkooda qofka marka uu magac leeyahay uu talent leeyahay mucaarad ayuu yeelanaya dawladda u jeedid mucaarad iyo muxaafad ay leedahay qof magac leh oo shacabka dhexdiisa magac weyn ku leh oo hadan wariye caan ah aan mucaarad lahayn waa raashin aan cusba lahayn. marka ma isleedahay Atoosh mustaqbalka waxaad adeegsan doontaa codka Atoosh mise waxaa jiro codad kale oo aad matasho markii laga reebo codka Cabdirasaaq Xaaji Atoosh? mustaqbalka waxaan filayaa in aan noqon doono wariye BBC-da sida ay waraysiga ii soo gaaray oo rajo aad u sare ayaan ka leeyahay kadib markii wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye ee la xiriirta Cabdirasaaq Xaaji Atoosh iyo sidoo kale agaasimaha guud ee BBC-da oo si weyn uu igu dhiirigeliyay agaasimaha BBC-da Cabdullaahi Sheekh Bashiir oo asagana qof aad u weyn Cabdirasaaq Xaaji Atoosh asagana waan ugu mahadcelinayaa dhiirigelintiisa iyo sida uu ugu muujinaya taageeraha xitaa marka aan barnaamijka aqrinay xitaa profilkiisa ama page-kiisa BBC-da ayay ku jirtaa agaasimaha iyo tafatiraha BBC-da iyagana raggi isoo dhigay ayay ka mid ahaayeen wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye iyadana waan u mahadcelinayaa sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirka warfaafinta madaxweynaha iyo dhamaanba inta aniga i taageerto oo barnaamijyada aan soo dhigay oo aad u sheergareynay waan u mahadcelinayaa. marka bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan ugu mahadcelinayaa taageerada iyo sida ay aniga alaba ay ii garab taageen ay ila doonayaan in aan horumar gaaro. marka horumarkayga dadka qaar way ugu taageerayaan oo dal iyo dibadda joogan dadka qaarna way ka soo horjeedaan oo sida qof hadda koor aan isla shaqeyn jirnay
ayaa jira dad aan isla shaqay jirnay oo aan hadda kala tagnay oo aan ogoleen in aan horumar aan gaaro in dadkaas magacyadooda ma doonaya inaan xuso laakiin waan sheegayaa inay horumar ii rabin oo kaliya laakiin maanta aad mid kamid ah hadafyadaadii aad gaartay aan gaari in horumarkaasina in waxa i gaarsiisay bulshooyinka Soomaaliyeed in khaasatan in dadka aan hore u soo xusay in Soomaalida ku sugan Soomaali iyo caalamka idil in sidoo kale taageero aad u weyn ay i muujiyeen waxaan salaamayaa bulshooyinka reer Muqdisho oo iyagana aad i taageero in Soomaaliya dhammaan 18 gobol waan salaamayaa in siday i taageeraan raskamboni ilaa raas caseer iyo bulshada ku sugan in adduun weynaho idil oo Soomaaliya hagaag waxaan ka rabaa inaad mar inoo matasho adigoo iska dhigaya codka Cabdirasaaq Xaaji Catoosh tusaale studio BBC dad ku sugan tahay bal waxaad ku soo caanbaxdana waxa kamid ah hal ku dhigida Cabdirasaaq Xaaji Catoosh hadii ay ahaaleed markii uu dhahayo halkani waa BBC aan nagala socotaan bal wax inooga taabo codka adigoo Cabdirasaaq matalaya halkani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga dhageysan kartaa magaalooyinka qaar internetka ciibaankeena waa bbcsomali.com duhur wanaagsan ayaan habada idin ka leenahay akhyaartana dhageysanaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta iyo dunida qodobada aan soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa ay sheegaysaa in ay sii kororeyso tirada dadka u geeriyoonaya caabuqa coronavirus madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegayaa in cudurkan uu ka soo galay xagga iyo jeenaha sidoo kale madaxweyne Kim Jong-un asagana waxa uu leeyahay waxaan aad u dhaliilayaa hadalka ka soo baxay Mr. Trump sidoo kale wadanka Madagascar oo ah wadan ka tirsan qaaradda Afrika kuna yaala jasiiradaha qaaradda Afrika ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay heleen daawo looga hortagayo caabuqa coronavirus-ka qodobada kale aan soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay in caabuqa coronavirus-ka uu Soomaaliya ku soo badanayo balse shacabka loogu baahan yahay in ay ka fiijognaadaan ayna iska ilaaliyaan in uu cudurkaasi uu sii baaho waa tahay ninkan aad maqlaysaan waa Cabdiraxmaan Buubaal Maxamuud wuxuu adeegsanayaa codka Cabdirasaaq Xaaji Catoosh oo alaaba uu ku soo caanbaxay dunidana maanta loogu yaqaano Catoosh yare Catoosh waxaad kamid tahay wariyaasha ka howlgala warbaahinta Jowhar idaacadda Jowhar muujada 89.5 MHz barnaamijyo noocee ah ayaad idaacadda ka akhrisaa ma warar mise ciyaaro maxaad door ka saartaa oo aad adiga jecesha had iyo jeer inaad ka sheekayso in waxaan soo tabiyaa barnaamijka isboortiga oo aan aad ugu caanbaxay oo bulshooyinka reer Jowhar aan aad ugu soo tabiyay inta badan waxyaabaha saacadaasi taagan ama ay hadal hayaan wargeysada iyo jaraa'idyada caalamka aan u soo tabiyo waa tahay gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku sugan kaalana socota janalka Kuwara maxaad leedahay adiga in bulshada oo idil oo janalka Kuwara iga daawanaysa waan u mahad celinayaa sida ay alaaba ii daabadaan ama ay ii taageeraan in waxaan leeyahay waxaan ahay walaalkiin waa wariyihiina oo inta badan jecel in uu horumarka gaaro in marka asxaabtana daawanaysa oo janalka Kuwara naga daawanaysa in aad ayaad u mahadsantiin janalkan Kuwara waxa uu u taagay in bulshada uu u soo gudbiyo waxa dhacdada aad ku xiisada badan sidoo kale intee waxa soo booqan kartaan janalka wariye Catoosh oo hadii ay noqolee Facebook ama YouTube labada waa soo booqan kartaan marka labadan janal waxa idinka doonaynaa in aad kala kicisaan oo aad subscribe like share aad saartaan aad commentiga noo soo qortaan in mar walba farxadiina ayaa farxadayna ah murugtiina waa murugtiina mar walba aad ayaan idin taageernaa aad ayaan idin ku faanaa waana idin ku faraxsanahay in aan maalin walba aan idin soo tabiyo waxa iminka xiisada badan leh ee saacadaasi taagan aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq waan kaaga mahad celinayaa waqtigaada qaaliga aad nasiisay iyo soo ajiibitaanka aad soo ajiibtay in aan waraysi kula yeelano waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga saaxiib ugu weyn horumar wacan ku rajaynayaa insha Allah mustaqbalka fog waad gaari doontaa waxaan ku leeyahay dadaal badi dadaalkaada dhiirigelin
iyo wax walba aad u baahan tahana maanta waan kula garab taaganahay waan ku soo dhaweynayaa waa si laba jibaar ka aajisin waa tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa waraysiga gaarka aan la yeeshay Cabdiraxmaan Buubaal Maxamuud Catoshare waxa dhanka kaamirada inaga qaabeynayay صادق على عثمان صادق باجكا فرسمدنا يسلم محمد احمد الماغ iyo haatan inta dib ugu kulmi doono warkan xiga aniga iyo Catoshare waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo